damacsine jabna waa nagu dhacay cadowgiina saaxiib ka dhigana waana soo dhaweysane kadib maxaa dhacay kadib masiibo weyn ayaa timid maamulkeenna sidaas ayuu ku burburay iyo burburka ugu xumaa xataa carruurteenna way saamaysay seef ayaa qoorta looga wada jaray magaalooyinkeenni qabiiladeenna dhammaantood waa la burburiyey intaasoo keliya sheekada kuma ekeen dumarkeenna dhammaantood waa la addoonsaday laakiin waxaa haray wiilal yaroo dagaalyahanaa waxay isku dayeen dhibkaas aa ku jirno inay naga saaraan deegaankii oo dhan waxay ka dhigeen meel oo dhiig ku qulqulayo dhallinyarada iskuuligood ma dhinteen ya dunya dhallinyaradaas 4 oo keliya ayaa ka badbaaday 2 wiil iyo 2 gabdhood wiilashaas wiil ka mida wuxuu ahaa qaan wiilkiisa wiilkaasna wuxuu ahaa kaayaqaan sida aabiisoo kale ma ahayn wuxuu ahaa nin kartele oo aadna u xigmad badan midna aqli leh afartooda way isla baxeen buuraleyda ayay isla aadeen si ay naftooda u badbaadiyaanna duurka ayay isla aadeen way socdeen weliba habeen iyo maalin ayay socdeen ugu dambayntiina waxay yimaadeen dhul buuraaley meel ooga baxaana maysan haysan meeshaasna meel qurux badan ayay ahayd maasha allah meesha ay tageen goob bahal ayay ahayd habeenkii oo dhanna way qiilinayeen laakiin nasiib wanaag 4 dhinac ayaa webi ka maray ayaga sidaas ay ku badbaadeen ugu dambayntii kaayaqaan wuxuu yidhi hadda iyo wixii ka dambeeya meeshaan ayaan degaynaa meel aan u soconno ma leh meeshaan ayaan ku noolaanaynaa anaga waa inaan meeshaan ku farcannaa sidaas ayay ku tarmeen goobtaas waxa ay ku noolaayeen muddo gaaraysa 400 sano ugu dambayntii maamulka kaayaqaan oo hogaaminaya meeshaas ayaa lagu soo aasaasay muddo fara badan ayay sidaas ku noolaayeen ugu dambayntiina waxaa la gaaray wakhtigii ay dhaqaaqi lahaayeen ugu dambayntii meesha way ku batay waan ku faracmeen kaayaqaan iyo dadkiisaba meesha maamul ayay ka samaysteen maamulkaas wuxuu ahaa mid kala dambayn iyo ixtiraam intaba leh maalin ayuu wuxuu ku yidhi anaga deegaankan ma aha wuxuuna ku yidhi awowayaashii ayaa waxaa ka maqlay deegaankeenna ma aha ee buurahaas muuqda gadaashood ayaa deegaankiina dhabta ku yaallaa deegaankeenna cadowgiina ayaa gacanta ku haysto annaga sida maxaabuustoo kale ayaa intana lagu soo xiray inaan difaacanno waa loo baahan yahay wakhtigiyaa la gaaray miya haa wuxuu dhaha wakhtiga ayaa la gaaray meeshaan aan ka guuri lahayn deegaankeena dhabtana aan degi lahayn ugu dambeynna wuxuu ku yidhi waa inaan baxnaa cadowga dhulkeenna haystan aan ka soo xuraysanaa deegaankeena dhabtana aan degnaa ciidanka ayuu 4 u qeybiyey 4 buuroodna waa u kala diray 4 ciidanoo la dira 4 buurood way dhaaf waayeen wayna iska soo noqdeen ugu dambayntii 4 buurood mid ka mida gudaheeda waxay ogaadeen waxa ku jira inay yihiin bir qaabka loo mari lahayn ay adag tahay ugu dambayntii kaayaqaan ciidamadiisa wuxuu u sheegay waddada keliya ee dhulkooda gey karta inay tahay birtaanoo la baabi'iyo ugu dambayntii wuxuu yidhi waa inaashnaa dab aad u xoog badan aan ku baabi'ino birtaanna hor taalo si aan deegaankeenna u tagno ugu dambayntii waxay doonteen geeda aad u fara badan geedahaasna waxay rabeen inay shidaan ay ku dhalaaliyaan buurta kadibna waxay shideen dab aad u xoog badan si ay ugu baabi'iyaan buurta hortooda taalo kadib dabka ayay shideen way afuufeen kadib dabkii wuu holcay
intaasoo maalmood ayay dabka shidaayeen ilaa oo iska qabsado oo ka xoogaysto. yaa allah. buurta markay dabka ku shideen waa hor fadhiistaan waxayna sugayeen natiijada ka soo baxdo ee sida ay noqonayso buurta. dadkaas waxay ahaayeen dad sabar badan, hal habeenna maysa seexanin ilaa ay buurta ay ka baaba'do. maalmo kadib dabkii ayaa damay. buurta birta ahaydne wayba dhalaashay gebi ahaanteeda. sidaasay meesha uga baxeen deegaankoodana ku aadeen. musalsalkani wuxuu gaar u yahay